ان adeer ka waran nimankan xildhibaanada hadda dawladda mooshinka ka keenay nimankan xildhibaanada ay hadda dawladeena Soomaaliya mooshinka ka keenay nimanka bal hadda warkooda nooga waran maxay kula tahay adiga adeer ma nimankan lilaabay dhabo ilaa iyo maaliyad meel walba qasay mise niman kale nimanka Cabdishakuur iyo lagu sheegayo Facebook nimankaasi kulli waa niman fara badan anaga waxaana lagu yiri 92 nin baa mooshin ka keenay warkooda ana ku haya waa gartay warkooda waxa weeye nin wax walba waraabaha kaciya iyo ka aamusan keeba daran waxaan maqli jiray ka aamusan hadaba waraabaha kuurka ugu jira aamusan xasan sheekh baa wadankan oo dhan qasaya iyo dawladda iyo hanaanka oo caalamka dhan sharafti Soomaaliya oo dhan riday oo ninkaas madaxweynaha hore Soomaaliya uu ahaa maxaa waxa ku kalifay illa Allah Muhammad Rasuulullah shida ka way Soomaaliya ma taaliyo sharaf dhac ka way iyo qiimo ka xun inama soo marin kawdhe ninka waxaan agaasibayo eeyda maarta eeyga markuu ninku staff u wato eeyga qabu yiraahdaa wixii soo agbara eey weeye nimankan uu dirsaday Cabdishakuur iyo Fiqiyo waxaan sheegaysaan iyo Cabdullaahi cunugan xula maaliyadda uu yiri lacagta ii qabo la kala goosan jiray hantida caalamka soo diro cunugan yare soo jirka 30 milyan qaatay lacagtay kala goosan jireen maaliyadana wuu dhiibay ma igaratay si fiican ninkaasna waa dad uu dirsaday wax Soomaali meel walba iyagu dirsada ma maqashay si fiican xilib ninka u fadhiya ee samrila ee doonaya inuu ku soo noqdo sharafta xumada uu Soomaali u geystay oo dhan la ogyahay gabdhihii iibsaday oo maxaabiista xabsiyada ku wada xidhay Soomaali oo waxaan ku iri amisom waad ogeyd xamar muqdisho saasay kaaraha u marinaysay Soomaalida ma igaratay si fiican ninka xasan sheekh la yiraahdaa Soomaali madaxweynaha iyo Soomaaliya sharafteeda oo dhan lacag ku bixinaya oo Imaaraat iyo Ethiopia intaba horgal waa iyo Sacuudiba horgal waxa waa xasan sheekh ninka hadda la taqaanaa mursal waa shimbir ninka u diray weeye gada meesha Turkiga lacagtiis Turkigu yiri ku dira Imaaraadka wuxuu yiri Sacuudiga oo Turkiga ku dira Turkigu lacagta ka soo qaatay waa fashilmay ninkaasina wuxuu u dirsaday inuu mooshi ka shaqeeyo waxa isaga adeegsanaya Soomaali cidlay gudaysaayo Soomaali waxaan u sheegayaa inay xasan sheekh mooshi ka keento oo laga mudaaraado caalamka la tuso muxtaar roogo wargagixisa ninka hadda wada waa isaga ninkan mursal la baxarka ninka galiyay mursal liya la weeye ninka baxarka galiyay waa xasan sheekh ninka Cabdishakuur wado baadiye laga keenay iyo waxan fiqigan iyo reer baadiye ahayd ninku reer baadiye markuu yahay wax usawaliga arag la tuso ما يدرك حال حلم موجة وعكو جبينة الصومالي نكالك هاديجا أو وضع أو دولة كوكاسن وخيرية فرماتشو هداي تجان صوماليا وأودا مات خيرية فرماتشو هداي تجان صوماليا تحسيد هذه هلا ديجو هذا روانكم مغلي أرنت هذا وحن كلية هاي إن وصوماليا وح صومري مدحوينيال بدن إلى عبد القاسم صلاح حسن وحسن كوريي وهذا فرماتشو يسقى كدم بيجي نكاس مدحوينياشي هوري محاد إياك لا يدو كجدو وين يا أركتي هذا لا إله إلا الله محمد رسول وربي الله أنت ور عبد القاسم قرقي سوف فديا صومالي هلا دايوله يا والشرف بكون فديا وكدق كان عسي مر ما يقانو waxa ku xigay Cabdullaahi Yuusuf guri Yaman buu fariisto tiisi ugu tib waxa ku xigay waxa ka horeeyay Cali Mahdi oo gurigiisu fadhiya waxa ku xigay Sheekh Shariif oo gurigiisu fadhiya ma maqashaa hadda si fiican warninkani ganacsi buu moodaya dadka Soomaaliyeed ma moodayo inuu bad Soomaaliyeed miskiin iyo mid xun iyo mid wanaagsan iyo hantiile iyo faqiir iyo sabool iyo shidada Soomaaliyeedba ma moodayo inuu ummad Soomaaliyeed wixii cunayay wuxuu haystaa ganacsi taajir ganacsi buu haystaa xilba kanba wuxuu arkaa ganacsi iskuul buu ka soo bilaabay oo hay'adaha sabalay gareeyay ganacsi buu adeer u arkaa ganacsigii buu laabtuna ku jira Kismaayo uu tagay soo moogid mar walba 10 xildhibaan buu yeerayaa oo la shiraya safaaradii buu tagayaa Imaaraadka iyo Sacuudigana wata bahdilkii iyo sharaf xumadii Soomaaliya baqaamkii ugu xumayd isaga inoogama dambeyn inoogama horeeyay tiibuu wada dadkan wiilashan dadkii indhaha u furay ee dadkii samcadii dawladda iyo karaamadii sharaftii Soomaali iyo burjigii Soomaaliyeed soo celiyay baxayn buu leeyahay ma maqashaada wuba yaaban yahay wuxuu isleeyahay ka gaad wuxuu xamar u fadhiyaa hadda isagoo sharaf madaxweyne soo maray wuxuu u fadhiyaa war ninkan iyo nimankan iyo dalka qabsan ganacsigii buu dalka ku wadaa
وانا كبح يا أدر أدر وانو مغلي أرنتها أدر وانو مغلي إن سيدات شيء يسيد إن كل أنا قد قضيضو إن أركتبان لنا هاي أدوك مدحوني ياشور كل إنا يدنو اللي بقولي ستشوجوان وجناي لكن نقل يا حسن ده كل إنه ولي أن دولة دي كل حمرية وانو أرجنا إن مركا هذا محاضو جو باقي ساعة إن شعب كالصوماليات oo arintaas aad uga sheegaysaa adigoo bal xusuusina iyo soona koobaya waqtiga nagu gaaban awgiis adeer waxaan ku soo koobayaa intii madaxweyne dalka soo martay sharaf iyo maqaam iyo xusid bay leeyihiin iyo taalooyin loo dhiso xasan sheekh maxamuud caalamka iyo Soomaali waxaan u sheegayaa in meel looga soo wada jeesto xasan sheekh in meel looga soo wada jeesto ayaa Soomaali u sheegayaa u digayaa وانك إسقوا مدحوينة تيتلا صومري أو نباتدي لو جايستي حدير نموش نكش غيره ور مرسل إيه عبد الرحمن عبد الشكور هذا فيلك أسمونه ما حسن الشيخ شداء الصومالية ما نحتال إلا يقبته أو صومالية أي وقاته بانوش يعني صومالية ها وقاته حسن الشيخ ها وقاته نيك وحن وذا حسن الشيخ قدوميها برلمان كان مدبر الصومالي وقدريا وفشل مي دم شديد بو نقضي معارض بو نقضي حسن الشيخ باو قامنيا قدوميها برلمان هلا دورته قدوميها برلمان هلا دورته او وليبا الصومالي كلا او ان لليحين كرين صومالي عدود ربها كهذا والسلام عليكم هي kaasi wuxuu ahaa Cabdi Maxamuud oo halka ku wareysanaynay annagoo ah jaaliyada Kongo halkaas waanu salaamaynaa hadalkiisina intaas ku dhamaaday marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh